18th May ay noqoto taariikhda cusub ee bilaabaysa 18th May ay noqoto maalin la xusayo loo dabaaldegayo fantasiyo loo dhigayo fasax la qaadanayo oo ku saabsan dagaalka la soo galay iyo dhiiga ku daatay sida aan loo iloobay oo marka laga dhigo for example maalintii Martyrs Day maalintii ahaan ku lahayd dhimashadu ay ku badatay dadkii dagaalka ku jiray Martyrs Day halyeeyadii ku dhintay lagu xusay oo ay noqoto maalin dadka waxa veterans baa ingiriiska la yiraahdo dagaalka soo galay dagaal badan baa jiray laakiin kani waa ka inaga xageena ugu weyn buu noqonayaa sidii loo xusi lahaa iyo fasax iyo fantasiye iyo celebrations loo galo 18th May inay sidaa noqoto 26 June ay noqoto National Day maalintii qaranka Somaliland uu dhashay ay noqoto waa ka caawa marxaatigii halka odayaashu ay ka hadlayeen maalintay dhalatay National Day kulkaan waxaan ku talinayaa inaynu ka shaqeyno madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo wasiirada iyo maxaan ku raayay dadka ku jira labada gole ee wadanka qawaaniintiisa laga dejiyo inaynu ka shaqeyno dastuurka in la geliyo June 26 inay tahay National Day of Somaliland inay noqoto aynaanu ku talnay marka maran dambe iyo sida la kala yiraahaa iyo waxaasi ay naga hadho waxayna marka dhigaysaa risaalad cusub oo muuqata oo dhan aan loo dhaafi karin ay noqonaysaa qofka jooga laascaanood amba ceelaayo laasqori jooga iyo qofka loo yaacada jooga inta u dhaxaysa waan dhameynayaa waxay noqonayaan marka dad degdeg isku afkarta ay noqonayaan SNL NUF iyo USB halka waxa ka dhacay shaqo adag ba halka la soo qabtay dadkii shaqada soo dhisay saddexda xisbi soo dhisay ee dhaliyay gobonnimadii Somaliland ta hoostay ku jiraan caawa laakiin ruuxoogu inay dhageysanayaan marka waynu marxaati furana waxay soo qabteen iyo siday u soo dadaaleen inaanay cidla ku dhicin oo inaanay loobin waxaan ku soo gabagabeynayaa عالنيوهو 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 عالنيوهو